Assalaamu calaykum, soo dhawaada saaxiibada kanaalka. Muuqaalka maanta waxaa kaga hadlaynaa qaabka loo bedelaa channelska routerkaaga iyo qaabka loo doorto midka ugu fiican. Marka ugu horeysa si aad routerkaaga gudihiisa u gasho waxaad soo qortaa IP addresska routerkaaga 192.168.1.1 kadibna enter. Kadib waxaad gelinaysaa passwordka. Kadib waxaad dooranaysaa home network. kadib waxaad sii dooranaysaa WLAN setting. kadib waxaad dooranaysaa optionka dhexe advanced setting. hadda waxaad u jeedaa routerkaaga frequency bandwidthkiisa inuu yahay 2.4 GHz. qaybta hoose waxaad u jeedaa channelska inuu automatic uu ku saaran yahay. marka ugu horeysa si aan u ogaano waa maxay channel, hadda qaybta kore waxaad u jeedaa channelska inay yihiin labo 2.4 GHz iyo 5 GHz. anaga hadda waxaan isticmaalnaa midkan 2.4 GHz. sidoo kale qaybtan hoose waxaad u jeedaa channelska ku ugu fiican ee la doorto inay yihiin 1, 6 iyo 11. sidoo kale waxay ku xiran tahay internetka iyo wirelesska isticmaalaan dadka kuu dhow sida deriskaaga iyo dadka la midka ah. marka ugu horeyso si aan u ogaano channelka ugu fiican ee anaga hadda aan isticmaali karno waxaan Google Play Store ka soo degsanaynaa application analyze gareeyo channelska. hadda waxaan ogaanay waa maxay channel iyo shaqada uu qabto. si aan u soo degsano mid ku habboon routerkeena marka ugu horeyso waxaan aadaynaa Google Play Store. Netgear Wi-Fi applicationka aniga mar hore soo degsaday, adiga soo degso kadib waxaa dhahaynaa open. kadib waxaad dooranaysaa, kadib qaybta kore waxaad u jeedaa channel 1 inuu recommended yahay. mar walbo aad dooratid channelka recommended-ka ah speedka internetkaaga wuu ku duwanaan doonaa qaabkii hore. marka hore waxaan ku laabanaynaa internetkeena. kadib waxaa dhahaynaa home network, kadib WLAN setting, advanced setting. kadib waxaa dooranaynaa channelka recommended-ka ah. kadib waxaa dhahaynaa save. hadda waxaad bedeshay channelka routerkaaga speedkiisa wuu ku duwanaan doonaa qaabkii hore. sidoo kale waxyaabaha aad ka bedeli kartid qaybta kore ee WLAN encryptionka waxaa ka mid ah in magaca internetkaaga aad qarin kartid. haddii tig aad saarno hide broadcast kadibna aad dhahno save, qof kale ma awoodi doono internetkaaga magaciisa inuu arko ama inuu isticmaalo. sidoo kale dhammaan device-yada ku xirnaa internetkaaga waxaa ka kharsimi doona magaca internetkaaga, ma awoodi doonaan inay si isticmaalaan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii ay tahay booqashadaadii koowaad la wadaaga asxaabtaada, ha ka ilaawin muuqaalka inaad like saarto sidoo kale kanaalka aad subscribe dhahdo.